gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna kusimaha gudoomiyaha xisbiga wadani Axmed Muumin Seed oo maanta uu warramiyay warbaahinta ayaa ka hadlay madax dhaqameed ka socday Soomaaliya oo ka kooban 50 oday oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed oo shalay ka soo degay madaarka Hargeysa. waxa uu sheegay gudoomiyuhu inay waraaq u gudbiyeen wasaaradda madaxtooyada Somaliland oo ay kaga codsanayaan inay faahfaahin ka bixiyaan madax dhaqameedka Soomaaliya ka yimid iyo ujeedada ugu weyn ee u socdaan waxaan uu bayaamiyay inay ka gaabsadeen mas'uuliyiinta wasaaradda madaxtooyadu waxaan uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim runtii odayaasha dawladda ixtiraamaynayo waa odayaal waaweyn inkastoo noo sheegay in siyaasiyiin ku jirto waxaan ku ixtiraamaynaa dawladda jaarkeena ka yimaadeen laakiin runtii anagu ma ogeyn wax sababtan ay u yimaadeen iyo waxay doonayaan laba maalmood ka hor baan anagu warqad qoraal u dirnay madaxweynaha Somaliland oo aanu kaga codsanayno in saxaafadda madaxa bannaan qortay in odayaal dhaqameedka ay Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ay imanayaan dalkeena marka inuu taam waxyaabo ay u socdaan macluumaad naga siiyaan baan ka codsanay warqadda baan runtii madaxweynaha u gudbinay warqadii jawaabteedina runtii waxay la soo xidhiidhay wasiirka madaxtooyada Somaliland oo ii sheegay saaka in warqadaasi gaadhay waxaanu ka codsanay inuu maogtahay raggan waxay odayaasha u socdaan inuu qoraal nagu soo gudbiyo runtii taa wasiirku aad buu uga adkaystay inuuna wax qoraal noo soo gudbin laakiin waxaan ku yiri qoraal soo gudbin dhinaca kale waxa uu ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani ahna kusimaha gudoomiyaha xisbiga wadani Axmed Muumin Seed khudbadii madaxweynaha Somaliland shalay ka jeediyay labada gole qaran taasoo ku tilmaamay mid aan ka hadlayn waaqaca maanta dalka Somaliland ku jiro isla markaasna xisbiga wadani uu guddi u saaray sidii loo hubin lahaa inuu madaxweynaha Somaliland jeediyay khudbadii 2013 waxaan uu yiri runtii khudbada sanadka madaxweynuhu jeediyay dhaliilo badan bay runtii leedahay waa aad u waaweyn laakiin anagu ka xisbi ahaan waxaanu saaray guddi khudbadii 2013 iyo khudbadan 2014 shalay jeediyay macluumaad ku soo samaysa hadii la yiraahdo saxaafadda madax bannaan sabtida insha Allah ta'ala u soo bandhigi doona anagu aad uga baarantahay dabcan gudoomiye dadka inta badan waxay sheegayaan in aan warbixintii uu shalay golaha ka horjeeday madaxweynaha Somaliland warbixintii ka horjeeday xisbiga saxaafadda talada haya kulmiye waqtigii shirweynaha qabanayay inay tii tahay intii kulmiye laga saaray idinku sidee la muuqataa xisbi ahaan ma falanqaysan mise ma faaqadid marka runtii inaan ka soo hordogo ma rimin laakiin su'aasha hadan ka jawaabo khudbadda sanadka madaxweynuhu iminka maanta jeediyay nuxur badan ma lahayn waayo ruuxuga waxyaabaha aad dadka shacabka Somaliland maanta u dhigtaagayeen waxay laba qodob inuu ka hadlo doorashooyinkii oo muddadii sanadkii hore khudbadii ay ku jirtay inaan maalin lagu darin khudbadda labaad laga sugayo waxay inuu ka hadlo diiwaangelinta codbixiyaasha mid labada qodob oo muhiim ah oo shacabka Somaliland aad ugu dhigtaagayeen labada qodob kama hadlin laakiin waxaan aad u jecelnahay khudbadaha labada jeer tii hore sanadkii hore tan wixii macluumaadkeedu oo dhameystiran inaan sabtida idin siin doono